waa hagaag daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena qodobkii ugu dambeeyay ee barnaamijka falaqaynta wararka ee caawa. Sumaya Nuur Cabdi waa gabar Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho. waxay tahay maamulaha ama madaxa shirkadda Wadani Food oo ah shirkad soo saarta waxyaabaha kala duwan ee cunooyinka kala duwan ee ka baxa gudaha dalkeena. Sumaya ayaa dareentay baahida shirkaddani xilli ay ardayad ahayd oo ay dhiganaysay mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, iyadoo xilligaasi ogaatay in ay bannaan tahay fursaddan taasi oo ay uga faa'iideynayso ama ay maaragtay ay dadweynaha Soomaaliyeed ay uga faa'iideynayso inay daboosho baahidaas. Sumaya hadda stuudiyaha ayay ugula sugan tahay. Sumaya marka hore ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta wararka ee Jubaland TV. waana ku faraxsanahay inaad barnaamijkan igu casuuntaan. sababta igu dhalisay asaasitaanka barnaamijkan ama barnaamijkan ama company-gan waxay tahay xilli aniga ardayad ahaa oo dhiganaya jaamacadda baa waxaa dhacday ka hor ma ogaan karin magaalada inta oo baxo inay baahi jirtay in kaleeto. markii la soo gaaray diyaarinta buugga oo ah sanadka ugu dambeeya jaamacadda waxaa dhacday in ardayda meelaha public isugu imaadaan oo banaanka ama meelaha la fariisto ama maqaayad ha ahaadaan ama meelo public oo la isugu imaado ha ahaadaan. waxaa dareemay marka meelahaas fariisto inaysan jirin cid soo hadal qaadaysa ama ku weydiinaysa ama waxyaabaha ay iibinayaan markaas ay qayb ka tahay dalaga wadanka sida digirtii, haruurkii, qamadigi cidna aan ku soo bandhigayno lagu dhahayo maxaa rabtaa cunto carabta laga soo minguuriyay ama wadamada ay dadka markaas maqaayadaha iska leh ka imaadeen ay ka soo minguuriyeen ay ku soo bandhigayaan. kadib baa waxaa dhacday inaan u arkay inay tahay fursad bannaan magaalada Muqdisho aysan ka jirin tahayna waxay dadku u baahan yihiin una roon caafimaad ahaan dhaqaale ahaanna bulshadanada kaabaya marka dalagii wadanka ka soo go'ay la iibsado oo aniga aan iibsado inta ila midka ah maqaayadaha wadanka ku yaalana inta iibsadaan ay sii iibiyaan waxay qayb ka noqonaysaa kororka dhaqaale ee wadanka. marka baahidaas jirta awgeed baa igu sababtay inaan bilaabo shirkaddan. waa su'aasha oo la isweydiiyay markuu qof wax bilaabayo xagee wax ka bilaabaysaa. dadka badi waxay ka fikiraan marka aad wax bilaabaysid lacagta ku baxayso intee la eg tahay company-ga magac company ama meesha aan rabo hadda inaan wax ka bilaabo lacagta ku baxaysa aad u fara badneed inaan furo xarun cuntooyinkaas laga wada helo bulshada ay u soo doontaan ay noqoto xarun cuntada dhaqanka laga helayo oo xataa dadka imaada magaalada Muqdisho marka ay dhahaan meel cuntadiina laga helo nagey ma jirto. hadda way dhacday dad qurbaha ka imaaday oo ajaanib inay dhahaan meelaha cuntooyinkiina laga helo nagey la heli waaye in la helo dadkaas noo imaanayna soo booqanay meel ay ka helaan cuntooyinkeeni oo la dhaho cuntadan noocan baa la dhahaa waxaas bay u roon tahay haruur baa la dhahaa, galey baa la dhahaa, qamadi baa la dhahaa, misir baa la dhahaa. kan oodka waayo waa hilibka ku quraacana oo aroosyada loo isticmaalo. caanihii geelka iyo caanayowga inta badan waa laga helaa maqaayadaha laakiin problemka jira waxay tahay inaan laga helin cuntooyinka kaleeto. marka fikirkeyga intaan ka weynaa waxa aan ka bilaabo waxay ahayd lacag ma haysto ardayad baa ahay oo jaamacad markaas kasoo qalin jabisay. way adag tahay inaan fikirka intaa qaado company oo la tago ama shirkad oo la tago ama bangi oo la tago inay igu taakuleyso oo lacagta aan rabo ay siiso. dadka iigu dhow markaas wiil ka mid ah arrinkii la wadaagay waxaa dhacday in fikradda oodkac maadaama ay ku jirto oo idho maxaa ka bilaabi kartaa oo isleedahay way ugu basiidsan yihiin. waana u sheegay inaan oodkac inaan package gareeyo kiileeyo dadka ka sii iibiyo aroosyada qorshahayga ay ka mid tahay. marka wuxuu dhahay ka bilaabo oodkaca saas u iibi kadib
meesha aad rabtid waa gaari doontaa waxaa dhacday inaan website uu igu saaciday inuu ii sameeyo page Facebook ii sameeyo lacag $50 markaas aan haystay aan ku bilaabo oo anoo investment badan raadinin shirkad u tagin way iga go'an tahay lacagta haystay intaas waaye waxa ogahay in qofna ay soo siineen lacagta oo baahanahay anoo fikir qallalan wata hadaa u tago $50 markaa ku bilaabay hadda alxamdulillah waxaa mareynaa heer bangiyada qaar soo codsadaan inay maalgeliyaan company-geena ay diyaar u yihiin inay maalgeliyaan oo lacagta uu u baahan yahay ay u huraan hadda marxaladda samareyna maanta waa gartay Kismaayaad imaatay maxaa ku soo bandhigtay Kismaayaa nimid 18 bisha 19 iyo 20 waxaa ka qayb galnay program qabanaysa shirkadda Geel oo ah shirkad saacida dadka hal abuurka la imaado gaar ahaan dhinaca xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga aad u saacida oo ah waxyaabaha anaga qaniga ah ku nahay waxay igu casuuntay maadaama waxa aniga wax ka soo saaray ay yihiin dalagga wadanka in haweenka Jubbaland ku nool aan u soo bandhigno productigeena tusino in gabdhaha ay wax qaban karaan gabdha Soomaaliyeed oo ay wax ka go'an yihiin ay jiraan si ayaga ay u dhiiradaan wax inta anaga aan soo saarnay in ka badan ay u soo saaraan ani magaalada Muqdisho ku noolahay waa marka Jubbaland loo fiiriyo waa source ay haystaan iyo xoolaha ay haystaan waa inaga qanisan yihiin marka in anagana tusaale u noqono gabdhihii Jubbaland joogay lana kulansiiyo bangiyadii ayaga inay is arkaan oo la istuso la baro bangiyada qaabkii ula xiriiri lahaayeen programka noocaas ah baa hadda Jubbaland u imaanay waana ku faraxsanahay in gabdho Jubbaland aan la kulanno tusino dhiirigelinna way u noqotay dhiirigelin badanna way ka qaadeen waa rajaynaynaa xilliyada dambe ama inay ayagana soo booqdaan ama anaga dib ugu soo laaban ayagu inta anaga hadda aan qaban in ka badan qabtay waa tahay ilaa iyo hadda wax xarun aad u samaysay ma jirtaa company-ga mise sidii aad ku bilowday baa hadda ku wada ilaa hadda wax xarun oo meel loogu soo hagaago oo ilaa hadda u furan ma lahan sababta ugu furan la anahayna waxay tahay in horta magaca bulshada ee marka hore ay aqbalaan productiga ay aqbalaan oo maadaama inta meel aad furtid ay adag tahay in marka wax aad gelisid banaanka aad ku soo dhici lahayd oo inta qarash wax ka galaan maadaama ay taas ay jirto hadda waxa ogaanay in productigeena dadka bulshada inay iibsadaan diyaar u yihiin ayadoo ilaa caalamka loo qaado Europe America waxyaabaha soo saarto maxaa kamid ah aad samaysaan hadda waqti xaadirkan waxa sameeyna waxa waaye oodkaca oo hilibka geela ah ka sameeyna intiisa badan iyo timirta oo ayadana inta lafaha laga saaro subag ama saliid lagu xasho sidoo kale sisin heelka filfisha iyo waxyaabo dhadhankeeda qurxinayo si oo macaan qofka uu ku raaxaysanayo oo cuni kara ugu sameeyno hada labaas productiya iibinaa magaalada Muqdisho gobolada ugu hareeraysan oo ayagana kaargo oo sii saarno dadka dibadaha ku nool qurbaha ku nool ee Soomaalida cuntadeeda aad ku yaqaan ay soo dalbadaan inkastoo qaab ganacsi hadda ayna u geenin hadana inta badan waana laga qaataa hamigaagu wuxuu yahay in xagee gaadha rabtaa hamigayga aad buu u fog yahay wax ugu weyn ee aan ku fikiraa waxay tahay in cuntada Soomaaliga ah caalamka ay suuq ballaaran ay ku yeelato ma ahan cunto chemical lagu sameeyo inta badan nafaqo badan iyo borotiin badan iyo caafimaad badanna way leedahay in suuqyada caalamka baahi badan oo ayaga looga qabaa jirto in suuqyada caalamka ay u baahan inta aan geeyno qiimaheedii iyo wanaageediina aan soo celino waa ujeedka ugu weyn aan ka leenahay aad iyo aad baa mahadsan tahay daawadayaaltaas waxay ahayd Sumaye Nuur Cabdi oo ah aasaasaha shirkadda Wadani Foods oo inta badan Muqdisho ay ka bilowday Sumayo aad iyo aad baad mahadsan tahay Sumayo sida wanaagsan oo waqtigaaga aad noogu soo hortayna waa kaaga mahadcelinaynaa sidoo kale aad baa